كسو جيل لما حاجة كان تماشى اللي سووك لا هبل بلغة فرطي نا حوجا حسلية دتك واركين مرون بها وحس تمايا دتك دينا روم قاتين بوها يستايسو dad aan maxaan ku yiraahdaa aqliyad badan lahayn oo maan kala soo cunay malahay odow ka tala qaataa baan is iri soo garan kuwa unba ordaya kuwiina geeska unba lagu soo dhufanaya waa soo noqonaya odow marka waxa weeye walaf baa haya walafkaas iyo wareerkaas ayuu kolba meel madaxa ku qaadaya mujaahid xasan mujaahid maxamed xuseen roble magac laga miskiin ma aha mujaahidkaas weeye salaamaya mujaahid darajada ugu sarreysan ninka agteeda kale adun baa mujaahid yaqaan farmaajo hadii la weydiiyo wax kale yaqaan wax nin walba wax uu yaqaan xasan baqaar baa u yaqaan dal xoreeye hawdiidaysa marka ruwaaga maartay baalka la yiraahdo waa baalka ugu iimaan la baa la yiraahdaa hayona dhaqanka xun xasan ruwaag uu noqday ruwaag waxa la yiri lafihiisana uma roolna laf daloe taalan ama banaan taalan uma rool gaari anigu aan leeyahay lacagtii aan ku soo gaday xasan sheekh og yahay oo yaqaano يلا تشيتيب يا كيدر يا مركب بس حارك يو غاري لسو بندي لو دراي غاري با اورن نك اللي يراهدو علي مهدي واللباح اي مع المهدي كان علي مهدي ها علي محل مع المهدي ميا لا قفك كل هذا الكاس هذا سو غابيا مغعيس ها علي مهدي جاس غاري با اورن guriga ugu hor degsanaya daqiiqadu door kadib wuxuu leeyahay ninka waa ka teenana shiraacan waa wata bahalkii wixii waa soo qaadaya halkaas la dhigaya marka bashir jeey ay qabanaya waa la walaaqanaya dadkan waa dad Mooryaana weey xasan sheekh iyo waxa la socdo oo dhan waa Mooryaan weey soo arag waa fiqi sharti ku sheegay baabuurtii loo gaday al-shabaab in lagu dareeray ahaa waa al-shabaab warka soomo waa run inuu fiqi shabaab yahay maad shabaab yahay maxaa xasan sheekh shabaab yahay maxaan ku yiraahdaa to dhamaantood ay wada shabaab yihiin runtii weey dhamaantood kuwi kale weey cali mahdi kuwi kale deeriye gudoomiyaha weey de kuwana deeriya meesha u jooga askar horta oday xasan walaf baa ku dhacay ma aragtay to walaf kama taqaanaa waa nooc xanuun ma aragtay aan jidii jahatoona qofku isla maartay iska meeraysanayo oo xagooda waa qaylaya waa dhawaaqaya waa qof qeeraysan waa qof caraysan waa qof yaani cid walba la dagaalaysan marka qofkaas oo kale wala dijiyaa waxa lagu dhuftaa cirbadaha maaragtay dadka dijiyay hurdada iyo wax noocaas ah lagu dhuftaa si walafka iyo wahanka iyo maxaa ku yiraahdaa wareerka yaani la deriska uga maaragtay xogaa uga soo kabsado oday walaf baa ku dhacay walafkii yaani walafkaasina wuxuu salka ku hayaa xukun jacayl iyo dadkii oo diidan aragtidiisii maanta hal qof oo bani aadana oo caafimaad qaba oo aqli leh oo faahin ama wax garasho leh ama wax fahansan oo xasan taageersan ma jiraan tana waxay ku sii riday marka jahawareerkan iyo walafka inuu sii laba jibaarmo cid walba marka oo yaani dadkii shalay wax ku aha ama wax ku noqday ayaa maanta cadowgiisa koobaad noqday way Abdullahi Maxamed Nuur miyaa taqaanaa ninka la yiraahdo tajirki ninkaasi wuxuu ahaa ama sababta ugu weyn ee xasan uu markale madaxweynaha ku noqday yaa lagu tilmaami karaa isagoo wasiirka amniga Soomaaliya ayuu dhaqaalihiisii iyo ciidankii iyo awoodii iyo taladii oo dhan wuxuu ku wareejiyay ama uu u isticmaalay sidii uu xasan wax u noqon lahaa ma wasiirka amnigu hay ugu xilliga aadiya markii xundubay laga qaaday xundubay waagi la afgambiye roble xundubaygaas wax la afgambiye waa ahaa saaga waaye markii xundubay laga qaaday yaani ninkii meesha loo dhigay buu ahaa ee kula diriray madaxweynihii dalka waay ayuu ahaa ku bixinaya dhaqaalaha wax walba isugu daray dhaqaalihii amniga iyo dhaqaalihii siyaasadda labadaba yaani bixinayay buu ahaa waay xagga dhankana ka taageeray dabcan markii dambe uu soo ceshaday oo lacag badan buu helay oo hay-adaha loo sameeyay maxaan ku idhahdaa to isaga dhaqaalihiisii uu dib uga cadaysto oo waxa uu sameeyay laakiin yaani
raggii waxay ahayd maanta xasan uu ka warwareegi lahaa baangadii ugu wanaysay ku dhacday hotelka inta la galay baa bahaladii maxaan ku dhahay kuraastii oo la wada riixanaya miyaa aragtay adigu gilgina kuraasta waa la bilaqaysto ma kuraasta meesha dadkan wax weeraraya waa dad qabiila oo cadhaysan oo qaarkood utumo hore iyo waxbay daba socdaan hotel ilad inta la galay hadda kahor baa dabcan waxaa jiray show adig wax xaafadaha u dhexeeyey baa jira dad badan ka hadlayaan arkahayay oo la wixii 91 iyo 92 dhacay yaad xasan uu naga aargoosanaysa kuwale haday isoo yihiin 92 inay dhibaato geystay way fiican yihiin walaagina de wax badan baa laga joogaa waxaas waa dhamaadeen baan islahaa anigu Soomaalida waxba kama dhamaadaan ma garanay gurigi waa la bilaqaystay hotelki waa la bilaqaystay baabuurtii iyo wixii iyo qalabkii yaalay nin walba wuxuu la carari karo la cararay dabcan meesha yani ceeba iyo fadeexada ka dhacay nin saaxiibkii bilaqaystay uu saaxiibka hatta hadad kala aragtid wanaataan oo isdagaashaan wixiisa waa loo xafidaa wixiisa waa loo ilaaliyaa xasan malaha saaxiib ma yaqaan miyaa saaxiib ma yaqaano dantiisu yaqaan saaxiib ma yaqaano maanta marka duruuftii waxay gashay in nin kasta oo saaxiibkii ahaa uu maxaan ku hadaa weeraro oo uu guluf ku qaado cid ka badbaadaysa haba yaraatay ma jirto shalay waxa ballan ku ahaa inuu weeraro meesha la yiraahdo Dayniil shalay mar kale inuu Dayniil weeraro isma baranimaya waa isbarteen ee waxa weeye aqli baan jirin walafka ma aragtay ma hadii walaf kugu dhaco waad ka soconaysaa derbiga barsan ilaa uu derbiga madaxa ku soo dhufto ma soo laabanayo marka xoogaa waxana waa u yar ruqeen oo baabuurtii hebel iyo hebel ka soo qaad mid xagga ka soo jiid laba xagga ka keen ta meesha la isugu keenay hebel baa laga furtay na xoogaa wuxuu isleeyahay dadku waa arkeen marun baa waxas maya dadka inay run u qaateen buu u haystaa isagu عقلي ما شغال واحد كان شغالين يا استغفر الله ومعجزوي والله واقع مو فاهمين مية مرة واقع ما فاهمين يا محنكو عن عقليات بدن لهين انت ما انكال سوعنا محنكو يا هاي ما انكال كنا محوها مرة ما انكال كوا بهال لقطة للسيو لقى موجوش مع سرده مركب ما وحي لقطة للسيو يا دكتور لا دوال عنا دكتور واعنا لقطة واعنا سؤال جرا وين ايش البعثرة اللي بهالكم مركي waxba lagu wareejiyaa ama warshad ha ahaato ama geelow ha ahaato ama dibi ha ahaato waxa lagu wareejiyaa marka xaggana waxa ka baxaya saliidi xaggana waxa ka soo haraya wixii qolofka ahaa oo noqonaya maxaan ku yiraahdaa wax mulxeefa oo lo'du ay ku cayisho dadkuba way marka halkaas marka cunto waxa weey aqliga dhan baa ka tagay oo mid noqonaysa dad aan maxaan ku yiraahdaa aqliyad badan lahayn oo maankaal soo cunay malahay odoo ka tala qaataa baan is iri way soo garan kuwa umba ordaya kuwiina geeska umba lagu soo dhufanaya waa soo noqonaya odoo marka waxa weey walaf baa haya walafkaas iyo wareerkaas ayuu kolba meel madaxa ku qaadaya kolba meel ku maartay isku dayaya inuu geeska ku dhufto waa lagu soo dhufanaya wala soo caydinaya isagoo wuxuu noqonayaa marka hadana wareersan oo dhacdhacaya yu banaanka imaanaya mar kale hadana meel kale isku qaadaya oo marka waxa weeye yaani cid aqliyad ku dhaanta ma jirto ninkii soo waahana shalay oday xamse ahabu dhulka la galay xamse soo hawlan kama hadleen maxaa ka rabaa ma waxa weeyaan buu kuleeyahay waxa socdo waxba kama ugu kuleeyahay hadana waxaan socdaba iyo balaayadan socota iyo hoogan iyo baan iyo waxaan la isku dirinayay iyo waxaan magaalada ka socday Muqdisho ee la isku dhamaaday mawlacab meel buu ku sariir hoosteed buu ku jiraa waxa socdo malaha waxba kama oga marka mikrofoonka marka loo baahdo ya mikrofoonka loo soo dhiibaa lama gaarin xilliga mikrofoonka loo soo dhiibay marka malaha wuxuu rabay in weerarkan uu ka soo gaadho xamse ka difaaco ma uu yahay odayga maadaama odaygii walaf ku dhacay ninkii dalkan iyo dadkan inuu badbaadiyo la rabay sidii jeerkii khayre مجاهد حسن مجاهد محمد حسين روبل ما قال لك مسكين ما مجاهد كاسوي مجاهد مجاهد درجة وصل رئيس نك أكثر كلام أظن ما مجاهد يخان برمجة ذي الويديو واحد يغنى ها واحد نقول بحبوب يغنى حسن بقار بقول يغنى ترى الحرية هاودي زاور يا حسن حدق وياي دولت المقسم حسن واقاري محمود رادين نجاح الوصول يو قفوا أيوة كبنا عبد الله النور بإريري
ونك إرينا عبد الله نور بعد عبد الله نور باني كريري قواري ولا عم بيشيس ولا هاي يو إرياني هاي أي محمد كل هذا يتو على جدها الله لا يوحى الله در هذا الدفاع هي بهلك خير حسن بالدفاع هي أولها باش محمد كل هرتي أبجهل وسنجلي وأنا أقول لا كوذنا دوركي قاري كده حي سجى يو محمد كل هذا يتو إلى هذا عبد الله محمد وكل إرياني يدي وكوي إلى اللي يمركو تجي ماشي معي هيد ماشي مجا على هيد راجع عالمية يو إريا داس ماشي يدو حيبتها هيد على اللي يروح مركو تجي بابورتي واردينيس يعني على الشباب هاي اللي هذا اللي وش بدي على الشباب مركا حسن يعني حاول رواق مارت بالك اللي هذا وبالك وإيمان لا بالي هذا ولا دقن كهن ها حسن رواق ونقول رواق وحالي اللي فيه سنة مرة لف دولات تالان أما بنان تالان مرة أفرتن سنة كهر لف ميل يعني لقد ديرته يسكو هذا يا مراسو ليه هيتشبي أنتوا لفتكم مشغول سنة يا سجل اللي فيه ماذا حلو قاضية يعني لف كبد واحد كبد بالي سمره اللي فيه سنة مرة حسن يعني واحد أسمعين أيو وقف يعني ميل لو راعي عن لهين شد يجها عن لهين قف هبيرات وحلو منك ما أنت حيرين واحد على جدي أنت لسه هالجماعي وساد وجد شريف كوارع وكنت المامي إلهي بعد ما يقبتي يبان كملك واس كمروس لما على مساره كو الدين تكسو جبري شريف بلوجي يتكلم بوده سوى حسن كفر حناي ساقرا ما أنت الملش يديسي يويل شو أدرك وهذا اللي أرجع حس والله دمعي أفر بقول ويل ورسنجليا إن قابل جودة دلو ما كان هذا سو مركز سو مساء قاعد ذكره وانا كري سنة ما حول سيا مش عارف بقاتها سو نكو الزوار سو دكتور ما ده هدول دكتور يهمحوها هي حوالنا ملها سو إن جامعنا مرهين انت واجين ويلك سواء راس وقول لي انت وعبد الله يوسف كدع السعودي هو تقال يوسف زراء عبد الله يوسف كدع سو ما دعي كده عبد الله يوسف كدع لكن ما راح قلت في دولة زوايد مدحوينها عبد الله يوسف بوها سعر بركة وركوض على باش الدولة دوسو دي رئيس الوزراء يا كين هي يا عربو هوتيل سفاري يقول لي سعر راسه يقول لك ليه هو نكاسي وين هي نلي هذا كورنيل أما كورنيل أبو بكر علي أبو بكر علي نكاس بس أنا أقول لك سلوا ورالي وقليمه ودفاع كبيرة ايش قليمه ومالن كارون قليمه ودم حايد قليمه ودقمو وديغان كترسن قبل كشوي لا دحه حسب كسو جاي مركم سوا ما سيده halkaas aan difaac kaga jiraa oo ciidan baan dawlad ha taliyaha guutada ururka 31 ee guutada saddexaad wax noocaas yaan guutada saddexaad ururka koystona taliyaheedan hay buu gaari anigu aan leeyahay lacagtii aan ku soo gaday xasan sheekh og yahay oo yaqaano yalla jiitay يا كذا يا مركب بس حارك ويو قاري la soo bandhigay lagu daray هي قاري badan baad u leeyahay markii قاري waa la kala jiitay waa meesha riwaayad baa saddex afar gaari yaa la kala jiitay oo waxa film baan ku dhigaynaa euro boorsamiinta xilbaan gaadiid baa arkayo akhrinaya meelaha laga soo ururiyay ha da nuurta sheekh xasan baa yaa iskale waxa yaa ku jirtay nuurta sheekh xasan yaa waa xasan sheekh walaashi ما قلبه ولي محمد علي شيخ يا قاري له اي نورته ولا شيء ولا الهبم اسلاح اسلام سنه اسلام هي سميت بقى حاجه دي شيء غير شفت ادو madaxweynaha ehelkiisa dhowr gaari laga soo jiiday bariya bahaladana waxay ahaayeen kaartoomada la safay gorodyada la safayna ee ku guriga xasan yaale bay ahaayeen gaari baa u raran ninka la yiraahdo علي مهدي واللباح مع المهدي قريب علي مهدي ها علي محل مع المهدي مين على قفك كل هذا الكاسات هذا وصل قبل مجلس عيسى ها هذه مهدي جالس قاري بقى أفرر قولوا يا وجوه الدكسية دقيقة الدور كده العملة بقى نجا بقى تهنا شراعنا واو تابع وحي ولا سوق هذا يهم كسر رجيا مركب شيء بقى ولا من ديها وقت كرفونا وقت يقولون موريان كلوي مركي وحوي بهلا بأفكار هاي علي مهدي محل هيسا محاول عرّيسا بهاش ليه ولا سو بوان اسوق موقت هذا اللي لو قال لي ترى قلت يقول قاري سفورية تكبر عليه وحنا عرّي روح الويدين تودي ذي سوى حلو ويدينا
waxaan waa lasla ogyahay wariyaashu waa ogyihiin su-aalo dhab ahay weydiinayaan ma baxsan karo hadduu afka kala qaado ma baxsanayo waxaan ma la kaana soo kii hebel maaha kana soo kii hebel maaha la dhihi ila waa yaqaanaan dadkan ciyaalkan tuuriyaha wata fiiri jamco waxaan miyaan la qurxin karin farsamo kale oo qurxiya ma lama xishoonayo waa la walaaqanaya dadkan waa dad mooryaana weeye xasan sheekh iyo waxa la socdo oo dhan waa mooryaan weeye sooga waa fiqiga sharci ku sheegay baabuurtii loo gaday al-shabaab in lagu dareerin ahaa waa al-shabaab warka soomo waa run inuu fiqi shabaab yahay mahad shabaab yahay maxaa xasan sheekh shabaab yahay maxaan ku idhaahdaa to dhammaantood runtii wey dhammaantood kuwii kale weeye cali mahdi kuwii kale deeriye gudoomiyaha weeye de ha de kuwana deeriya meesha u joogaan shaqada qabsaday kuwan ay u raadgadaan kuwani oo nin kale wuxuu hagaaji u haleeyay waxba ma hagaajin waxna ma haleeyaan kuwan waa rag la isticmaalayo waxa weeye jinku xagsay baa la yidhaahdaa wixii ay ceel dheer iyo aadan dheere iyo ceel dheer iyo misegawaa waxay haleeyaan yay sheegtaan soo gara goob markii guriga xasan cali khayre yaa weeraray afartaas taliyaa weerartay afartaa taliye afartooda hal mid a mooyaane saddexda kale waxaa dhalay mid maxamuud baa dhalay maxamed sheekh maxamuud baa dhalay ciidan dheere waxaan u malaynayaa inuu yahay maslax ciidan dheerena waxaa eedo u ah islaamaha xasan sheekh maxamuud mid ka mid a eedo u ah midna waa isaga wiilkiisi saddexdaas iyo mid wacbuudhan ah oo weliba daa-uud ah oo maxaanku idhahdaato yani wuxuu ka mid yahay horjoogayaasha wuxuu ka mid yahay afartaanna baa weerartay ninka la yidhaahdo xasan cali khayre maha salaad baa isdhex taagay marka kii kalena gaari meeluu kala yimid aan la aqoonin iyo meel luuqa ku maxaan soo bandhigtay yuu ku rogtay oo yidhi inta teendho u dhigtay waa kuwana alaabtii aan ka qabsanay bahashi eedii iyo dakanadiiba iyagaa la wareegay way fahantaan u malaynaya waxaa waaye marka habar gidiri isha cali ka loota iyo ku cibro qaadatay waxaan sugaynaa yani labadaas tallaabo mid ay samaynayaan sida xogta aan ku hayana habar gidir noon isdhiibaya ma ah maraykan bay isu dhiibi waaye calada cabdi qaybdiid ka muuqatay waa arkaysa marga tag shariifkaa dhacyada oday meeshii ugu dambeysay ka barisay kas hadda aanu filayo wax badan inuusan la joogin oo nin hadda wax badan hayaayo sarahayn laakiin waxaa weeye dadaaladu way socdaan habargirti waa isqaybiyeen dagaal muddo dheer bay isu diyaarinayaan sida xogta aan ku hayno dagaalka muddada dheer maxaanku idhahdaato yani ay doonayaan inay lafahooda ku difaacdaan habargidir faa'iido badan hadda iyo macaash badan ma hayaan oo xasan baa intii ay faa'iideen 30 iyo dhowrkii sano lasoo dhaafay xasan baa ka daadiyey waagii hore 2000 iyo maxaan ku 22kiina ciidan ahaan buu u isticmaalay iyo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan intaba waa u isticmaalay xasan sheekh iyaga wax ka dhigay iyagoo jagada ugu sarreysa haysta Soomaaliya ee fulinta iyagoo haysta yay u sadaqeeyeen wax kasta oo ay habargidir heli lahayd iyo naf iyo maal iyo wax walba dul dhigeen xasan sheekh